dowladda Puntland waxay go'aan ku gaartay in gabi ahaanba ay joojiso wixii xiriir iyo wada shaqeyn ah ee ay la lahayd dowladda dhexe ee federaalka ah. dowladda Jubbaland ay joojisay wixii iskaashi shaqo oo ay kala dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya. dal walba oo adduunka ka jira waxa uu leeyahay nidaam dalkaasi lagu hago ama lagu dhaqo. nidaamkaasi ayaa ah mid noqda mid dalkaasi u horseeda inuu gaaro kala dambeyn iyo amni iyo horumar ballaaran. haddaba dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka qaaradda Afrika iyo caalamkaba ku lahaa magaca duweyn. hase ahaatee taa waxay noqotay mid la calfan waayey. guud ahaanba waxaa burburay nidaamkii dowladnimo. wax walba oo qaran uu lahaa ayaa noqotay mid ku baabada gacanta Soomaaliyeed. hase yeeshee taa waxaa laga dhaxlay nidaam xumo iyo kala dambeyn la'aan. tani markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya waxaa dalka soo maray dowlado tiro badan iyo maamulo ku dhisnaa qaab qabiilaysi, balse dowladahaasi dalka soo maray ayaa ahaa kuwo aad u taag daran, waxaana lagu tilmaami jiray dowlado ku meel gaar ah. waxaana ereygaasi keenay beesha caalamku dowladahaasi ma aysan aqoonsanayn, balse waxaa Soomaaliya laga dhaadhiciyay in ay tahay dowlado u gogol xaaraya in la helo dowlad rasmi ah oo caalamku uu aqoonsan yahay. balse taa waxaa barbar socday in dowlad walba oo caalamka dana gaar ay ka leedahay Soomaaliya ay ka fushinaysay. qaarkood waxay xaalufin baahsan ay ku hayeen badda iyo bariga Soomaaliya. dalka ilaa iminka waxaa ka jira oo badda Soomaaliya waxaa buuxa maraakiib shisheeye oo iska guranaya kheyraadka dalka. waxaana la sheegaa in Soomaalida ay yihiin burcadbadeed, caalamkuna ay la dagaalamayaan madaxda qaranka Soomaaliya. arrinkaasi kama aysan hadlaan. bal aan u daagdegno dulucda qurmadeeda. dalka iminka waxaa ka jira dowlad dhexe. dowladaasi waxaa beesha caalamku ay sheegeen in ay tahay dowlad rasmi ah oo ay aqoonsan yihiin caalamka, waana dowlad federaal ah. balse su'aasha meesha taala ayaa ah shacabka Soomaaliyeed sidee buu u arkaa nidaamka federaalka, ama ma yahay mid dani ay ugu jirto shacabka Soomaaliyeed? Soomaaliyase ma yahay dalkii ku habboonaa nidaamka federaalka? federaalku waa nidaam ka mid ah federaalka caalamka. waxaa jira dalal dhowr ah oo ku dhaqma arrimaha federaalka, waxaana ka mid ah haddii aan soo qaadano dowladda Mareykanka oo dowlad aad u weyn. waxaana markaa ka jira nidaam federalism oo ku dhaqmaan dowladahaasi, waxaana hoos yimaada maamulo hoos yimaada dowladda Mareykanka. hase ahaatee waxaa guud ahaanba laga hagaa aqalka cad ee Mareykanka, waxaana go'aanku ka baxaa hal meel oo kaliya. tusaalaha labaad haddii aan soo qaadano ama qaaradda Afrika aan soo aadno, dalka Itoobiya waxa uu ka mid yahay dalalka qaaday nidaamka federaalka. hase ahaatee waxa uu yahay dowlad leh nidaam siyaasadeed, kala dambeyn iyo amni, waana waxa uu weyn dowlad walba mar doonaysa inay qaadato federaalka ay leedahay in ay lahaato nidaam degan. hase ahaatee dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dal burbursana ama dal soo maray dagaalo sokeeye in badanna soo burbursana, waxaana shacabka Soomaaliyeed xilligan loo sheegay in ay qaadanayaan nidaamka federaalka. hase ahaatee nidaamka federaalka ayaa ah nidaam markaa loo baahan yahay in laga baarandego, waxaana uu ku habboon yahay dal leh siyaasad degan, amni, kala dambeyn iyo weliba dowlad awood leh oo maamuli karta guud ahaanba maamul goboleedyada hoosimaanaya dowladda federaalka Soomaaliya. hase ahaatee Soomaaliya waa dal dagaalo sokeeye ay soo ragaadiyeen, waxay isku dagaaleen qabiil, waxaana xilligani Soomaaliya ay tahay mid u kala qaybsan gobolo u degan yihiin qabaa'ilo Soomaaliyeed. hindisahani ayaa ah hindiso ay la yimaadeen beesha caalamka. dad badan ayaa rumaysan in lagala tashan shacabka Soomaaliyeed, waxayna rumaysan yihiin in Soomaalidu ay nidaamkani federaalka uu dalka u horseedi karo in dalka mar kale uu burbur ku yimaado. balse shacabka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa qalbigooda ay ku taagan tahay talow xaalka siduu buu noqon doonaa. bal aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca dalkeena Soomaaliya. dalkeena iminka waxaa ka jira dowlad dhexe oo federaal ah, waxaa hoos yimaada maamul goboleedyo ama dowlad goboleedyo yimaada dowladda Soomaaliya, waxaana magac ahaan ay hoos yimaadaan dowladda Soomaaliya, maamul ahaan uma muuqdaan kuwa hoos yimaada dowladda dhexe ee Soomaaliya. dalka iminka waxaa ka jira maamul goboleedyo markaa dhowr ah. aan soo qaadano Puntland waxa uu ka mid yahay maamul goboleedyada iminka dalka ka jira, waxaana ay aaminsan yihiin maamulka Puntland uu yahay hooyada maamul goboleedyada Soomaaliya ama federaalka Soomaaliya. waxaa dhowr mar isku dhac ama khilaaf uu soo kala dhexgalay dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana maamulkaasi uu sheegay in uu guud ahaanba xiriirkii uu jaray dowladda dhexe ee Soomaaliya. dowladda Puntland waxay go'aan ku gaartay in gabi ahaanba ay joojiso wixii xiriir iyo wada shaqeyn ah ee ay la lahayd dowladda dhexe ee federaalka ah. waxaana sidoo kale dhacday in maamulkaasi uu yeertay xildhibaanada baarlamaanka ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya. balse haddii aad inta maskaxdaadu ay maqasho talow maxaad is leedahay karowga, bal dhanka kale aan sii eegno. Puntland waxa ay gashaa heshiisyo waaweyn oo ay mudan tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay gasho. sidoo kale shirar caalami ah oo ka dhaca caalamka ayaa mararka qaar waxaa dhacda in dowladda Soomaaliya aysan ka qaybgalin, ayna ka qaybgalaan mas'uuliyiin ka socda maamulka Puntland. taana waxaa kaaga daran mar walba waxaa dhaca kulamo lagu heshiisiinayo
dhexaynayo dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland. goobaha ay kulamadaasi ama heshiisyadaasi ay ka dhacaan waxaa ku sugan shakhsiyaad shisheeye oo ka socda beesha caalamka iyo dowladaha dariska la ah Soomaaliya. waxa isweydiin mudan talo ma laba dowladood oo la heshiisiinaya waa su'aal meesha taale. goobaha ay kulamada heshiisyada ka dhacaan waxaa ku sugan shakhsiyaad shisheeye oo ka socda beesha caalamka iyo dowladaha dariska. waxa isweydiin mudan talo ma laba dowladood oo la heshiisiinaya. dhanka kale madaxda maamulkaasi sooma booqdaan magaalada Muqdisho oo caasimada ummadda Soomaaliyeed. taa badalkeeda waxaa laga yaabaa in bulooyin gudahooda ay gaaraan magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi. bal dib u eeg ama dib u shaqeysii maskaxdaada maxaa ay soo qabanaysaa markaad maqasho nidaamka federalismka. dhanka kale aan eegno Jubbaland waxa uu ka mid yahay maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana dhidabada loo aasay sanadii 2013 waxaana ay ahayd mid asaaskiisa uu ka dhashay khilaaf aad u weyn oo soo dhaxgalay dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiintii horboodey maamulkaasi. waxaana sidoo kale jirtay faragelin ay ku hayaan dowladaha dariska la ah Soomaaliya sida Itoobiya iyo Kenya. balaan eegno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhaca Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya. madaxda dowladda Soomaaliya iyo dadka qaar ee deegaanadaasi kuma aysan qanacsaneyn sida loo sameeyay maamulkaasi. waxa uu muuqday mid gacmo shisheeye aan ka marnayn gaar ahaan dowladaha jaarka la ah Soomaaliya. waxaana dowladaha dariska la ah Soomaaliya ay doonayeen inay fuliyaan go'aankooda ahaa in ay lug ku yeeshaan maamulkaasi. intaa kadib ayaa mid kamid ah dowladaha dariska Soomaaliya la waxa loogu yeeray wada xaajood u dhaxeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. waxaana wada xaajoodkaasi uu ka dhacay dalka Itoobiya. heshiisyadii dalkaasi lagu kala galay waxa ugu muhiimsanaa in dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo maamulka degada iyo airportka caalamiga ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale heshiisyo kale. ilaa iminka ma jirto wax ka soo naasacadaada heshiisyadaasi bal ila eeg dhaqanka ka jira nidaamka federalismka ee Soomaaliya ee xilligan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in lagu hagayo shacabka Soomaaliyeed. midba mid bay ku dhiibtay taa waxa kaaga daran Jubbaland waxa la sameeyay xildhibaano maamulka Jubbaland lagu magac daray xildhibaanada xulistoodii ayaa waxa ka dhalatay dood aad u baasan oo ka timid dadka wada dega deegaanadaasi oo iyagu aysan ku qanacsaneyn sida loo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland. waxa arinkaasi markii dambe loo soo gudbiyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. waxaana baarlamaanka Soomaaliya uu noqday kuwa gaashaanka u durura in xildhibaanadaasi ay yihiin kuwa markaas si sax ku yimid. waxaana ay qaadaceen in ay jiraanba xildhibaanadaasi. hase yeeshee waxa arinkaasi si carale uga hadlay maamulka Jubbaland waxaana ay ku tilmaameen hadalkaasi ka soo yaray baarlamaanka Soomaaliya inuu yahay mid wax ka soo qaadasho aan lahayn. waliba waxay sheegeen inay xiriirka u jireen dowladda Soomaaliya. dowladda Jubbaland ay joojisay wixii iskaashi shaqo oo ay kala dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya. balse halka markuu xaalku marayo maxaa kaaga muuqda nidaamka federaalka Soomaaliya. isla baarlamaankaasi waxa uu sii watay howlihiisa shaqo. waxa wax yar kadib halka waxa ka dhacay doorasho madaxweyne oo lagu soo doortay madaxweynaha iminka talada maamulkaasi haya. xaalku marka waxa uu noqday mid u muuqda mid federaalka Soomaaliya uu yahay mid cid walba oo doonaysa inay qaadato nidaamka federaalka Soomaaliya ay noqoto. xaalku soo markaa ma noqon karo cid walba halka ay doonto haama hawrarato nidaamka federaalkana inaga sida ayaan u naqaana. koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu ka mid yahay maamul goboleedyada iminka ka jira dalka Soomaaliya ee hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana sidoo kale madax ka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo mar soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya hase ahaatee iminka waa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. waxa xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeya isagii dowladda federaalka Soomaaliya hase ahaatee markii la aasaasay maamulkaasi waxa uu muuqday mid aan ka marnayn dowladda shisheeye. waxa si dhaqsi ah ama la yaab leh lagu doortay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha iminka talada haya ee koonfur galbeed ee Soomaaliya. waxaana saacado kadib doorashadiisa uu dhaqaaqay magaalada Copenhagen ee dalkaasi Belgiumka halka oo ka soconaysay shir caalami ah oo ay ka qayb galayeen madax ka tirsan dowladda Soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. hase ahaatee waxa sidoo kale khilaafkaasi lagu xaliyay markii dambe wada xaajood dhaxmaray dowladda Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. waa maamul iminka curdul ah oo dhismihiisu ay qabiyihiin. maamulka Galmudug waa maamulkii ugu dambeeyay ee la dhiso waxaana hoos yimaada dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana hogaamiye cusub hogaamiyahaasi ayaa aad waxa isku fiican yihiin dowladda dhexe mana jirto wax hadda khilaaf oo kala dhaxeeya dowladda ama wax xiriir u jarida oo kala dhaxeeya balse xaalka la soo doonay halka uu saldhigto. adhisida maamuladaasi iyo caqabadaha taagan waxa ka daran mid kale oo dadka Soomaaliyeed ay maanka ku hayaan xuduudaha ay yeelanayaan maamuladaasi. baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda wali war kama soo saarin arinkaasi balse waxa xusid mudan in ay jiraan cabsi badan oo laga qabo in ay ka dhashaan xuduudaha ay yeelanayaan maamuladaasi iyo waliba kuwa iminka dhisan iyo kuwa soo socda.
Puntland iyo Galmudug ayaa iminka waxaa ka dhaxeeya khilaaf xagga xuduudaha taasi oo koow ka ah dhibaatooyinka laga yaabo in dalku uu keeno federaalka balse shacabka Soomaaliyeed ayaa waxaa ka guuxaya talow xaalka sidee buu noqon doonaa ma gobol u noqon doonaa mise gooni isku taag.